واتي لفتي سوا إيجا مقنتها هذا وإيجا مقنتها لكن أبوكر قابنا لي هذا هرتي أبقى واي أوكي dad wanaagsan ku jiro oo macnaha oo wax garad leh intaadan qofka horta adiga aadan beegsanin ka hor ehelkiisa inaad wargelisid haddii ay banaanka ka istaagaan hadda ka horna waa kuu sheegay waxaan ku yidhi hadda ka hor baa nin i xumeeyey odayaal baa u marka sug marka caanada iyo shaay inaan isku qasnamaan haddii marka sheegow arrintiisa loo noqdo hawiye kale waxba lagama rabo Soomaali sidoo kale abgaal looma haysto Soomaali wax hadday soo gelin macnii adinka haddaad tihiin shabeelle macnii waxaad uga fadhidaan inuu la xisaabtamo abgaa kale in la nabadgeliyo وعبودن إلا نبتقليو هرتي أبقال كلا إلا نبتقليو وعيسل إلا نبتقليو معلين دبلاو إلا نبتقليو دقوين إلا نبتقليو عبد الرحمن سليمان إلا نبتقليو سهل إلا نبتقليو فقي إلا نبتقليو أرورس أو علي قافة إلا نبتقليو عدان إلا نبتقليو ماركيسي معني كلا إلا معني أديكو هدي حسابتان أي تهي يبدالها لحسابتان ما يسابنك حسن شيخ كليئة هدي كوا كلا إنت مرمرايا ما يستان هرتي أبقال كلا ما يستان أبوكر قابنات كل جنتين شو تاه سيدا سوى من حسابتي لبضات يوشيد ها لبضات لف يوشيد سوفاديان جرير انت سكال بنام كوي تاغي وهو ديار لي هاي نفع مال انو بهيو هدي قبيل كلا او سو غلنا لف كلو جرير غليسا قبيل كلو سو غلا بلفتي كابونا غلينينا باهنا جرير دان اسكو متغايو اوكي هدا ودا سان سارنتاي marka abgaal oo dhan haduu inta maraayo oo idin ka nabad galaya هوية كلا ودي كنا مايا أنتوا سنسوق كان وضع حساب شباب سوق مركز شباب يبدأ حساب تما يا بكر جابني يجوا حساب تاس أسعة تعدي هوية كلا نسوق جلين أبجال كلا نسوق جلين أدينكم بالين كلا برنامج كجوكتان ضد كلا ما هي ستان معني ويلكين الشيء وحكربتان ماركيس معنيه لبضاسي جلب صومة ساسوا حسابته intaasaan ka rabnaa ha markaan ku leeyahay dawladnimaan heerinaynaano markaan ku leeyahay waxa waaye in Soomaali ay ogaato la yiraahdo war magac dawladeed ma ahayn magac qabiil baa la idinku dhibaateeyay Soomaali saas ay u sheegtaan rabnaa annaga markaas meesha aadayna hadda laakiin waxaan leenahay magacaan meel iska saara Soomaalina ku markaatiyaya ilaan qabiilka mu duulin asaga qabiila hebela ku duulna ma dhihin magac dawladeed ay shaar dawladeed ay ii sheegeen marka shaar dawladeed anbu waa igu jira wiilal shaar dawladeed wataan waa jira maalmaha kamid ah ani waa qaadan doonaa shaarka dawladeed dabteed meesha waa tagi doonaa insha Allah taala wadadeedana waa socdaa wada aad socoto magaaladaas waad gaaraysaa marba hadaad wadada saaran tahay marka magaca dawladeed aan horta meel ka saarayna markaan ka laabano qabiilka markaas ay aadaysaa id allaal idii oo qabiilkii kale oo far soo yeesho oo raad uu soo galana wallahi inaan gadaal loogu noqon doonin gabarba ayay naga harin laakiin waxaan maanta diyaar u nahay anaga aan dibadaha joogto wiilashayni gabdhahayni aruurtayni kuwa wax bartay iyo kuwan wax barananba kii wax aan barana xoogiisaan rabnaa kii wax barantayna maskaxdiisaan rabnaa kii dhaqaalahaayna dhaqaalihiisaan rabnaa laf alaala laftii maanta ay jareer taabato tii ahayd gooheedan leenahay waxba ha baqin wadadii hadda soo fuushay marka Soomaaliya sida loogu nool yahay xisaabta ma idinku jirtaa marka magacaan Mawlid Macaani iyo raggan 98kii 98 ay sameeyeen in aad ka guurtaan macnii aad u guurtaan sida hawiye oo kale digil iyo mirifle oo kale dir oo kale ma arkayse macnii daarood oo kale macnii inaad u guurtaan ma idinku jirtaa baadama ma arkayse qabiilaad kale 0.5 kale idinku dulmiyay ay idinkula jiraan oo magacyo qabiil ay wataan aanay wadan magacyo urur ilaan magacaan jareer weyne مولد معاني يتيم كاسة سميات نوشك تعاوى كن سجال بقول سجاشن يدوركي مركا معني إن مجعان ويهاي لجا جورو مجع قبيل جود أقادتان مركز كدي القبيلات وكلبحه ثلاثة حسابته ما يدي كجرته مجع وحن كوري مولد معاني أربوي مجع وهو هاسمو مجع وحن كنا هاي وهو كبهاي جبوينكا جريروين مجا جريروين سببته كبهاي وكو سببيه ما يسببته سوى فهم لكن سيدو الدونا بحكو بحو معني هذا الدارات أو كله شلعكما استيسنا جريرنكما استيسنا ضلكنا إن ليسكو عليا الربا عنصرية دان إن دماتا الربا دقل إمرفلا أو كله معني قبيل بوكو سليسن يهي مدب مجا تين كما سليسنا
sidoo kale ma arkayse abuur ilaahay kuma salaysna magaca daarood wuxuu ku salaysan yahay qabiil magaciisa magaca direed qabiil iyo jir kuma salaysna caddaan iyo madow annagoo dhan carradaana laga abuuray marka adinka maadaama aad tirahdeen cunsuriyad baana lagu hayaa si cunsuriyadda ma arkayse waxa keenaya aad uga guudhaan qabiilaad maadaama aad tihiin si qabiilkiinana aan ugu lumin soomaalidana sida ay u nooshahay aad macnihii ula socotaan magaca ma arkayse macnihii abuurka ilaahay abuuray intaa ka gudubtaan macnihii sida afarta qabiil ee soomaalida iyo inta 0.5ka la dulmiyey ee idinla ah sida moorshe qalinshub bandhabow madhibaan annaas tumaal carab saalax qabiilaad magacyadu ay u wataan magacaan jareer weyne inaad ka kacdaan iska beddeshaan aad bixiseen oo magac qabiil ah hal qabiil kaad doontaanba qaata magaca guud oo qabiil inaad qaadataan sida daarood sida dir sida digil sida dawla talama idinku jirtaa taas magaca asaa imaanayo magacan qabiil ma noqdo waa kuu sheegay soomaalidana annaga jilaadana annaga isbarayno waxaana isku baraynaa haddii maanta nin jareer la dilo lafta jareer ka ahaa ayaa fadhiisanaysa ama haddii uu wax dilana diida bixinaysa haddii asaga la dilana diidiisa qaadanaysa ama qofka loo qasaasi doono haddii maanta qof oo nin jareer oo dilo jareer lafti uu ka yahay maanta ay istaagto ninkan halii qasaaso loo qasaaso ama haddii jareer wax ay halayso mak laga rabo makta laftaas iska dhinto jareer intiis kale bannaanka yahay ayadaa imaanaysa war jareer baa wax naga dilo jareer laftaas bay ahaayeen maya laakiin sugsug marka hadda magaca jareer weyne oo kale meel dheeraan wax ka fiirinaynaa macnii dunida macnii dad dulman inay yihiin ayaa laga gadayaa laakiin in another word afartan qabiil oo kale iyaguna in ay qoraan soo lagama yaabo dadkan iyagaa cunsuriyad wada oo dadkii separation u samaynaya xataa macnihii soomaalida kale oo garabka macnihii aad ka rabtaan in ay u fahmi karaan inaad ummadda aad sii kala qaybinaysaan oo midab ahaan idinku aad samaynaysaan apartheid dad ma arkaysa macnihii timo adag iyo dad timo jilicsan in soomaalida sidaa aa u qaybinaysaan middaasi colaad idinkaga imaataa soomaalida adduunkana loo baraa dadkan cunsuriyadda iyagaaba wadoo dadkii dhinac u kala soocaaya middaasi nafsadeeda ma ka fiirsateen si cilmiyeysan marka aan ku leeyahay magaca qabiil qaata markaas qabiilaad tihiin inay qof jiraa saas u dhaho faataha umara allaha ka soo qaado inuu asaga u yidhaahdo jareera wax cunsuriyeyna inuu idhaha waaba rabaaba ama maya laakiin isagoo ku cunsuriyeynaya ayaa haddana ma arkaysa macnihii laysu dabagedinaya xisaabta tusaale sheegow inta gurigiisii la weeraray ayaa haddana la yidhi isagaa mobeella dhacay waad u jeeday macallimow qayle horta in badan haddii la sheego broofaan hayaa maalintii unsuri soo bilowday ilaa saacadana hayaa sababaha aniga waa lagu og yahay waa lagu cunsuriyey laakiin nation separation dadkaana wada soo macnihi la isma tusi karo mar haddii afarta qabiil oo kale magacyo ay wataan ma arkayse kuwa idinku koontada ahna magacyo qabiil ay wataan idinkana macnihi magac race a wadataan xisaabta soo saas looma dhigi karo aniga waxaan ku caddaynayaa ama unsuri ha liigu tilmaamo ama wax kale ha liigu tilmaamo annaga kala qabaa'ilaan nahay annagaana isbarayno jareeraana fadhiisana magac uu qaadan doonana jareer asagaa ku wada hadlaayo oo loo wada siman yahay oo macnaha dalad ay tahay oo laisugu yimaado laakiin nin kastoo qabiilkiisi iyo qaarankiisi iyo qasnadiisi u madax bannaan yahay iyo deegaankiisa aan loola tegaynin maanta haddii qolo lagu gardaroodo oo deegaankeeda laisku dayo in laga qaato qoladii kale haddii waddanka boosaaso joogto oo jareerku joogo inuu usoo gurman karo walaalkiisa oo dhulkiisa la dulminayo oo meesha joogo waajib ka saaran waay kan inta joogana meesha inuu tago taas waa joognaa waana isugu imaanaynaa dadka arrinkaasay oo wax ka bedeli magac haddii la bedelayo dadka ku habboon maalintay fadhiistaan waxay ka dhahaan haddiina anfacon siyaasiyiintiina waa qaadanayna haddiina anfici waayna waxaan leenahay saan nooma rooneen saanaan qaadanayna ugu dambayntii daqiiqad laakiin hadda sidaad la socotaba dhammaan jareer waa qiiraysan yahay haddee geel orday dhahdiisana lax laguma qabsan karo marka taas
dibaan u dhiganaynaa laakiin waa wax badanaan soo wadna daqiiqada ugu dambaysa jugjug meeshaas joog adoo raalli ah ma arkayse sheegow in dowladda soomaaliya ay aasan doonto ma rajaynaysaa mise in dadkiisii la siin doono jawhar lagu aasi doono waxaan aniga aan aaminsanahay ama aan sugayaa in meedkaasay la iibsan doono oo nanaga iibin doono haddii ayaga aasaan iyo haddii nana siiyaba meedka naftiisaba in lacag laga qaadi doono markay ugu yar tahayna qiyaasteeda 50,000 ama 40,000 oo dollar inay ay dul saarnaan doontaan aan rajaynaya sababtay tahay waxa loo haystay ama wax loo dhibaateynayo oo la diidan yahay inaad kor u istaagto in dhagaalaha magac koran laga uriyaamiyo dhagaalahana lagu uriyaamiyo waaye marka haddii ay dhaqaalaha qaataan kullayba meel lagu cunaa raba waxba uma arki doono meedka haddayna siiyaan wax hadda oo darajo zaa'id annaga hadda aan heli karnona ma lahan inkastoo odayaasha qaar ka mid ah ay dhahayeen haddii meelaha ay ku duugaan beri werdi haddaan rabno inaan u akrino ama rabno inaan booqano meeshaas ma booqan karno meel anaga aan ku booqan karnaan ku aasanayna laakiin aniga ma qabo meel alle meeshii lagu aaso qof allaala qofkii islaam ah oo soomaali ah ayaa waajib ku saaran maanta inuu meedkaas asturo laakiin haddii annaga ay yidhahdano meedkaan iibsadana haddee waan iibsanaynaa waxaan kusii markaati badinaynaa soomaalida kale sidai taariikhda ay u gasho haddii ayna siiyaanna eebta way ku jiraan haddii na siinana eebta way ku jiraan hadday dhaqaalo qaataanna eebta way ku jiraan haddaan qaadana laakiin marna nin eel galay bi ima gaarin dharkeygoo qaleelaan soo bahayna ma dhici doonto daamur jadiid meel ay faraha la soo gashay dhaqaale la-aanna ma ahaanayso marka dhaqaalahaasna diyaaraan la nahay waana la baxaynaa waana ka sugaynaa inay kasoo yeeri doonto insha allahu tacaala laakiin ma dhici doonto kaali meedkan qaado ma dhici doonto aad iyo aad buu u mahadsan yahay dhegaystayaal daawadayaalkaasi waxa uu ahaa ma arkayse macnihii jugjug meeshaada joog oo caawa aan isku dheeraanay ma arkayse arrinta general sheegow iyo weliba qadiyadda uu xambaarsanaa iyo magaca jarirweyne magacan jarirweyne ma arkayse oo aan aad u falanqaynay dhegaystayaal iyo daawadayaal kala duwan ayaa stuudiyaha warbaahinta Southern Media Corporation soo wactamay waxaana ma arkayse ay igu leeyihiin wicitaan baanu doonaynaa Yusuf Wadani ayaa stuudiyaha Southern Media Corporation qadka ku jira Yusuf ma ila socotaa waa soo dhaamaqalinku waa ku salaamaya hoogaa yar waa ergabsanahay Allah ku caafiyo Yusuf waa ka xumahay hargabka ma arkayse macnaheedu waa salaamay waa iska ayo oo kuleelka la gelaya dadku ka ergabsadaan waa ninka waa iska caadi ma salaamay ummadda Soomaaliyeed inkastoo aan waxaan rabaa barnaamijkii general sheegow inaan ka hadlo oo shalay aan ka dhacay malay maqlaad si fiican inaad uga hadashid al rabaa waliba ma arkayse waa lagula xisaabtamaya caawa baasha hoosay u daadegaysaa ku soco raalli noqo dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaal haw kumanaanka kun ee qofood ee aaladda tiktok nagala socda haddii kanaalka uu sixiro daqiiqada kadib dibaan ugu soo noqon doonaa idinkana barnaamijka Yusuf Wadani waad la sii socon doontaan Facebookna automatically uu socdaa ma kala go'i doono sidaas la socda Yusuf ku socod horta waa ka taasiyay generalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inaa ilaahay inaa ilaahay raajiyo Allah u naxariisto waana geeriyooday cawrahasha ku baadilay laakiin waxba u raacay waa ninka la yiraahdo horta ninka generalka waan ka taasiyay qoyskiisa qaraabadiisa ummadda Soomaaliyeed uga taasiyay ninkaana waxa waaye niman dileen hore in u dileen ninka la hore uu meesha isaga jiray ninkaan uu beesha u yaadishan ka gaaraan beesha galbaadishay aniga hadii la weydiiyo waan siday way maxaa loo dilay muxuu galabsan waxa loo dilay waa yeeli karaa beela yar yar oo ka dhashay لمويان وعكرة المدل اوكي marka waxa leedahay sababta dambiilayaal guriga islaameed haysto oo waliba madaxooda saraakiila iyo kuwa jooga sanadara way adigu laakiin ma arkayse macnaheedu sabab kale uma haysid sheego loo dili karo sabab kale loo dili karaa ma jirto
وحلود دلي نكان إن أنا هدلو الصور أوهين نخلي هذا نخلي هذا وحلود عوري نخلي هذا نقمر لقوم أقول محل كفور جبين محا أنت رجع ماشى جوكت إن حتى يلو قد يصير كرتاب قالوا كلا تو نخلي هذا نخلي هذا سلا السنة شغال قد يا شام عبي فرحان قرالة كوا كوافر بالله صوت كشدي ما فهم صوته برير لو مدري كان ما فهم سراكيل بيا هولغل بالله دير هولغل كان لو دحراعي ما فهم وليغا وبي بكو دبالتay qofaad xarash soo hayseen geed yar hoos juqma kaga siiyay iyo dhinaca kale ka soo qoos marka kuwa waxa saraakiisha kaleeto si qarsoodi laakiin Yusuf saraakiishan sida qarsoodiga loo dilay waan garanay maanta u dambeysay oo xataa nin kala macni la dilay oo macni Xasan Faray ku jufaa sidaan maqlay su'aashan ku weydiinay waxay tahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda sheegow darajada generaalnimada isaga siiyay haddana markii dambe taliyaha ciidamada xoogga lagu dhiibay inta la yiri dibadda looga yeeray gudaha markuu yimaadana waa la weeraray garaadana ma lahayn tuugu ahayaa la yiri madaxweynaha sababta ugu soo kala fireeyay maxay tahay وهو هورتا سيدهدaba anigu horta laba maadaan u maleeyo horta maada waa bisaga aqaana hadal maada waa kuga hadal shaqo xaasidnimada iyo dhaqan xumada iyo qabyaalada iyo inuu ninka ku xoog badan ku joogsado waa ku aqaana laakiin there is a reason qof shalay general uu siiyay ee wada shaqeynayeen badbaado qaran ay wada ahaayeen dibadda uga yeeray taliyaha ciidamada xoogga lagu dhiibaa uu yiri gudaha soo galay wuxuu ugu kala fireeyay maxaa la isqoonsaday wax kale la soo qoosay horta ninkan xogaa ciidan oo haystay nin tababarna waana uu ahay oo nin wuxuu ahay ninka la yiraahdo ayaanahan aan nin asiga la mid ah Allah arkin oo beeshan ninka la yiraahdo jarweyne ninka la yiraahdo beesha reer Shabeelle oo sharafta leh nin la mid oo ku bawsan jir aniga waxaan jecelahay hadda kadib inaan loogu yeerin jarweyne magaca la yimaadaan laakiin jufo walba qabiilkeeda in loogu yeero maadaama Soomaalida oo dhan qabiil ay tahay qof walba saasaan ugu baaqaya Soomaaliya ma jiro wax la yiraahdo jarweyne 97 al sameeyay beesha Shabeelle aan yiraahdo qabiilka Shabeelle mushinguli ninka la yiraahdo adiga waa qabiilo marka magac kasta aniguna saasaan ku leeyahay waa ku taakiidiya sax aniga ninka uu yana beesha Ali Gafaaray ma fahad هذا شيخ علي قال ما ديدي فرماجو مريحه وكو صوبا هاديه marka ujeedada loo dilay sidaas way ahaday wax kale soo dar laga ma lahayn in aan la soo dabactada karin inuu xasaniyad dilo ninkan ku badbaadayo uga yahuudu soo dad masaakiin meesha kuma burbursato oo kuma baabiiso ma Iiraan weerar ilays dadka dawladda Iiraan ilays ما إنجليزي فرنسيسكا يجرمك يكدوش كم مصر عاد الإسلام يكدوش